ayaan doonayaa inaan reer Burco ku wargelino haddaanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka in ay jirto hawl ka duwantii nadaafadda oo ah dhagax ururin iyo wada banayn wadooyinkan dhagxaantu yaalaan ee guri warba la hor dhigay waxa aan ugu celinaynaa oo ku wargelinaynaa reer Burco in ay ka qaataan waa wargelin horena way nooga baxday mar labaad baan ku celinaynaa iyo mar saddexaadba xoghayaha iyo maayarkuba hore u sheegeen warka mar labaad baan idinku celinaynaa waxa aanu leenahay 12 bisha markay gaadho dhagxaanta dawladda ayaa raranaysa dawladda ayaa iska leh halka loogu yimaado cagafta iyo iska rogada ayaa soo maraya waa la gurayaa hanti dawladeed bay noqonaysaa wixii ka horeeya xaq u leedihiin hadda shacabka tihiin inaad basrisataan meelo aad leedihiin geysataan ciddii u baahan inay waqfasto oo cid siisana waxay ku soo hagaajinaysaa dawladda hoose ujeedada nagu kaliftay waa bilicda magaalada iyo qurxinteeda maadaama aan noo doorateen in aanu magaalada bilicdeedii soo celino oo qurxino waa in loo dulqaataa awaamiir kasta oo naga timaada waa inaan noogu dulqaadataan wixii bilicda magaalada baanu ka shaqaynaynaa waxaan kaloo u digaynaa iyagana u wargelinaynaa hodheelada xaabada ishordhiga iyaga laftoodu waa inay ka basristaan oo wadooyinka xaabada ka qaadaan xaabadaasi nadaafad darrana way leedahay xashiishkii baa ku ururaya qorijab iyo xashiishna way ka tegaysaa hodheelada laftoodu wayna xaabada iska hagaajiyaan dadkan dhagxaanta guryaha hortooda marka laga qaadana guri kasta si safety-ga u soo noqdo ay gaadiidka uga nabad galaan waa in lagu bedelaa dhir